Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal, qaybteena hore waxay noogu joogtay in raggii muslimiinta ahaa ay saf u galeen Tataarka si ay ula midoobaan, weliba raggii ka talinaya gaarka khilaafada Cabbaasiyiinta ee Ciraaq. Hogaamiyihii lagu magacaabi jiray Hoolaakana uu ku tala jiray inuu rido khilaafada Ciraaq ee Cabbaasiyiinta, sidaa darteedna uu u baahnaa inuu marka hore la midoobo madaxda ka talinaysa agagaarka khilaafada. Taasna u suurto gashay isagoo aan isba dhibin, sababtoo ah madaxdii muslimiinta iyaga ayaaba kala hororsanay la midoobidda Tataar. qaybteena maanta waxaynu ka bilaabaynaa waxaa niyad-jab weyn ku dhacay shacabkii kadib markii ay arkeen hogaamiyaashoodii oo kala horarsanaya la midoobidda Tataarka. go'aanadii ayaa kala daatay, waxa dhammaan curyaamay kalsoonidii hogaamiyaasha lagu qabay. intaa kadib waxaa burburtay kalsoonidii ay isku qabeen madaxda iyo shacabku, waxaana meesha ka baxday awooddii laisku hortaagi lahaa Tataar. waxa uu gaadhay dadaalkii Hoolaaka ee siyaasadda iyo diblomaasiyadda isugu jiray in uu ugaadhsado shakhsiyaadkii madaxda ahaa ee Cabbaasiyiinta. wuxuu xidhiir la sameeyey wasiirkii ugu sarreeyay ee dowladda Cabbaasiyiinta, waana shakhsiga labaad ee dowladda ugu sarreeya marka laga yimaado khaliifka. waa wasiirkii lagu magacaabi jiray Mu'ayid al-Calqami oo Shiici ahaa. Mu'ayid waa nin aad u xun oo faasid ah, samaha ka dheer oo diidmo badan, wuxuuna diidanaa khaliifnimadii Abibakar iyo Cumar, ilaahay labadoodaba ha ka raalli ahaadeen. shiicanimaduna aad bay ugu fogeyd, aadna wuxuu u necbaa sunniga iyo dadka sunniga ah. waxaa la yaab leh sida uu darajadan sare u gaadhay qof noocaas ahi, uuna xilka intaa leeg uga hayay dowladdan weyn. laakiin shaki kuma jiro in garasho la'aan darteed arrintani u dhacday, iyo garashadii oo laga abaarsaday, iyo qorshaha Muctasim Billaah oo aad u liitay, waayo umaba dhiibtan xilkan intaas leeg ninkan khatarta ku ah dowladdooda. wasiirkan waxa uu ka mid ahaa kuwa shaqooyinka ugu xunxun ka fuliya Cabbaasiyiinta, markaa cid kasta oo caqli lehna kama qarsoona shaqo xumadaas midhaheedu inay tahay inuu dalka fasahaadiyo shicibkana halaago. arrinta ku tusaysa in muslimiintii wakhtigaasi garaadka ka abaarsadeen waxay ahayd in uu wasiirkani xilka hayay muddo 14 sano ah. mar haddii aanay intaasoo dhan fahmin khaliifyadii kala dambeeyey ee Cabbaasiyiintu ninkan khatarnimadiisa, taasi waxay daliil cad u tahay caqli-yaraantooda. waxa uu la soo xidhiidhay Hoolaaka Mu'ayid-diin isagoo ka faa'iidaysanaya fasaadkiisa, xumaantiisa iyo shiicanimadiisa, iyo weliba nacaybka uu qabo sunniga. waxay isla afkarteen in uu u fududeeyo soo gelitaanka ciidamada Tataarka ee Baqdaad, iyo inuu ka kaalmeeyo fikradda lagu duminayo Baqdaad, iyo inuu la socodsiiyo dhammaan dhaqdhaqaaqa khilaafada, gaar ahaan Muctasim Billaah. taasna ay u fududahay waayo waxa uu dhex fadhiyaa xukunkii dowladda oo dhan, isla markaana uu xukunka la wareegi doono marka la rido khaliifkan. dhammaan dadaaladan diblomaasiyada ee ay sameeyeen Monako Khan iyo Hoolaako waxay ka mid ahaayeen diyaargarowgii adkaa ee ay u diyaargaroobeen weerarkoodan argagixisada ah, isla markaana biyadhiciisu ahaa arrin aan dunida hore uga dhicin inay sameeyaan. gebagabadii dadaaladii diblomaasiyadeed ee Tataarku waxay ku soo urureen inay la midoobaan boqortooyinka Armenia, Georgia iyo Andakiya oo dhammaantoodba Nasaare ahaa. xidhiidh adag oo aan hore loo aragna ay la samaysteen. dhammaan madaxdii Nasaarada ee Shaam waxay la sameeyeen xidhiidho qarsoodi ah. sidoo kale qaar ka mid ah madaxdii muslimiinta oo uu ku jiro wasiirkan faasidka ah ee Mu'ayid-diin waa shiicigii weynaaye. marka la isku wada daro dadaaladan diblomaasiyadeed ee ay Tataarku sameeyeen, shaki kuma jiro inay gacan weyn ka geysanayso qorshahoodii riditaanka khilaafada muslimiinta. intii aanay dagaalweynaha soo qaadin Tataarku waxay bilaabeen dagaal aan hub loo isticmaalayn, laakiin af iyo carab loo isticmaalayo, oo dagaalka ay muslimiintu ku jabeen intii aanu soo gaadhin kii seeftu. waana waxa loo yaqaan dagaal nafsadeed, oo ah dagaalada kuwa ugu xun oo si nafsiyan ah loo soo weeraray muslimiintii wakhtiga. sidoo kale wuxuu isticmaalay Hoolaako waddooyin badan oo muslimiinta ku jabinayo dagaal hortii. fikradahaas waxaa ka mid ahaa: 1. in laga fuliyo olole argagixin ah deegaanada ku xeeran Ciraaq, kuwaas oo ujeeddadooda ugu weyn ahayd baqdingelin iyo fidinta wararka Tataarka, kuwaas oo soo taxnaa ilaa wakhtigii Genghis Khan iyo Oktay. ololihii koowaad waxa uu ahaa wakhtigii Genghis Khan oo lagu joogo ugu yaraan 30 sano. ololihii labaad ee Tataarku waxa uu ahaa wakhtigii Oktay, ujeeddadiisuna waxay ahayd burburin iyo dabargoynta dadka muslimiinta ah. sidaa darteed waxa uu doonayay Hoolaaka inuu sameeyo howlgal militari oo burburin iyo argagixin ku salaysan, loogana gol leeyahay in muslimiinta la ogeysiin dagaaladii Tataarku aanay joogsan, iyo in ay ciidamadii Tataarku weli awooddii leeyihiin adduunyadana ku fidayaan. arrintaas waxaa tusaale u ah in koox Tataar ah ay duulaan ku qaadeen sanadkii 650 hijriga gobollada dhaca jasiiradda Suruuj iyo Sinjar. waa gobollo ku yaalla waqooyiga Ciraaq. waxay ka geysteen dil, dhac iyo qafaalasho. waxyaabaha ay weerarkan ku sameeyeen waxaa ka mid ahaa inay ka qaadeen oo la wareegeen xoolo aad u tiro badan oo ahaa safar ganacsi oo u maqnaa deegaanadan. xoolahaas waxaa lagu qiyaasay 600 kun oo diinaar. shaki kuma jiro in ay khasaare aad u ballaaran gaadhsiinayso khilaafada Cabbaasiyiinta arrintani,
weerarkan waxaa hoos socday diyaargarowgii ciidamada Tataarka ee dhinaca dhaqaalaha. Waxyaabahaasoo dhan isku soo duubo waa fidinta argagixin iyo cabsi ku abuurista dadka muslimiinta ah. Waxa kale oo dagaaladani u muuqdeen dagaallo ku tiiqtiiqsi ah, aad ayayna u daciifiyeen tamartii khilaafada Cabbaasiyiinta. 2. Fikradaha dagaal ee ay Tataarku isticmaaleen isla markaana ay bahda kaga saarayeen dadka muslimiinta ah waxaa ka mid ahaa dhinaca warbaahinta oo ah dagaalka ugu xun, waxaana u qaabilsanaa arrintaas qolada dabadhilifyada oo ah Tataarka ee joogay dhulalka muslimiinta. Suuqyada dhexdooda ayay kaga sheekeynayeen awoodda xad-dhaafka ah ee Tataarka iyo diyaargarowgooda oo ah mid si heer sare ah u agaasimen. Waxay mar walba isbarbar dhigaan awoodda iyo tamarta muslimiinta iyo Tataarka. Waxaasoo dhan waxay gelinayeen warbaahintii wakhtigooda jirtay. Warbaahiyayaasha casrigaana waxaa ugu horreeyey gabayaayada iyo abwaanada, dadka sheeko xariireedka yaqaan iyo taariikhyahanada. waxaa ka mid ahaa wararkii ay qoreen dabadhilifyadii Tataarku. 1. Wararka Tataarku dunida way gaadheen, laakiin warkiinu meelna ma gaadhin. Waxay uga jeedaan hoogga iyo halaagga ay ka sameeyeen caalamkii ay qabsadeen, isla markaana sirdoonkooda uu aad u sarreeyo. idinkan sirdoonkiina waxba lama joogaan. 2. Tataarku hadday meel doonaan inay galaan, hal mar ayuu diyaargaroobaan oo gacanta saaraan, lamana ogaado ilaa ay soo galaan meeshaas. 3. Tataarka dumarkooda waxay u dagaalamaan sida raggooda. hadalkan oo sababay in raggii Ciraaq ku noolaa ay ka sii baqaan la kulanka dumarka Tataarka. 4. Fardoodu waxay qodaan dhulka ilaa ay xididada dhirta soo saaraan. waxay cunaan diirka geedka, dhir ay daaqaanna uma baahdaan. 5. Tataar hilib oo dhan way cunaan, xitaa ka bini'aadanka ayay cunaan. shaki kuma jiro qoraallada noocan oo kale ahi inay saamayn xun ku reebayaan nafaha. dadkiina waxa waali iyo wareer ku riday balaayadan looga sheekeeyey, ama waxaynu odhan karnaa sideedayba balaayo u ahayd. waxyaabaha kale ee dagaalka dhinaca mooraal jebinta ah ee ay Tataarku isticmaaleen muslimiinta waxaa ka mid ahaa waraaqo cagajuglayn iyo hanjabaado aad u cabsi badan oo loo soo dirayay madaxda muslimiinta. markaas ayay doqonnimo heerkii ka gaadheen. markay soo gaadhaan dhambaalladaasi ayay dadka shacabka u akhriyi jireen, kuwa madaxda sheeganaya. sidoo kale waxay Tataarku waraaqaha ku soo qori jireen af ay fahmayaan dadka ay ku socoto, maadaama oo ay ka saamayn badan tahay af kale oo la turjumayo. waxay Tataarku ka dhaadhiciyeen muslimiinta inay muslimiin yihiin, asalkoodii horena uu islaam ahaa, dhulkanna ay u imaadeen inay dulmiga ka saaraan iyo in muslimiinta cagta qoorta lagaga hayo u gargaaraan, gaar ahaan shicibka. waxaa shaacabaxday wakhtigaa odhaahdii ahayd shacabka Ciraaq ayaannu xoraynaynaa. hadalladaasoo dhammi waxay si toos ah ugu dhacayaan kuwii qalbiyada ka bukay iyo kuwii iimaankoodu tamar yaraa. markaas ayay soo dhoweynayaan Tataarka, isuna dhiibayaan, iyagoo oo isleh waa kuwiida xorayn lahaa, xilkana ka tuuraya inkaarqabayaashan imika haysta. dhambaalladii Tataarka ee wakhtigaas jiray wakhtiganna way inagu badan yihiin. waraaqahaasaan soo sheegnay waxaan ka xusi doonnaa hal waraaq oo hoolaaka u diray mid ka mid ah madaxdii muslimiinta. waxayna qornayd sidan: waxaannu nahay ciidan ilaahi, mid kasta oo wax isbida waannu soo hoggaan barnaa, cid kasta oo libaax iska dhigtana bisada ayaannu ka dhignaa. amar ilaahi ayuunbaannu ku shaqaynaa. adduunyadii waannu halaagnay, basharkiina waannu dabargoynay, dumar iyo carruur badanna waannu xasuuqnay. kuwiina isla wada hadhaysaanow waxaad ka daba tegaysaan kuwii tegey. wardhoohanayaashow waad raacaysaan. ujeeddadeedu waa argoosi. weerarkaygana cidima celin karto. cadaalad ayuu maamulkaygu caan ku yahay. seefahayagana meel looga baxsan karaa ma jirto. waannu baabi'inay adduunyadii, carruurtiina waannu agoomaynay, addoommadiina waannu halaagnay, cadaabna waannu dhadhansiinay. kuwii ugu tunka weynaa iyo hogaamiyayaashooda ayaannu maxaabiis ka dhignay. waxaad u malaynaysaan inaad naga badbaadaysaan. diyaarsada meeshii aad u carar lahaydeen, meel aad nagaga badbaadaysaan oo aan dhimasho ahin ma jirtee. shaki kuma jiraan waraaqaha noocaas oo kale ahi marka ay ku dhacaan qalbiga qof baqaya ama fulay ah in aanu weligii awood u helayn inuu sameeyo dhaqdhaqaaq yar kadib markuu akhriyo waraaqahan iyo waxyaabaha ay ka hadlayaan. 4. waxyaabaha kale ay warbaahinta u marinayeen muslimiinta si ay u boqogeliyaan waxaa ka mid ahaa in ay u sheegaan la midoobidda Armeniya, Georgia iyo kuwo kale. weliba ay aad u soo dhoweynayaan inay heshiis la galaan madaxda Yurub si ay isku kaashadaan. muslimiintuna ay u malaynayaan in wixii dunida dad iyo cadowba joogay oo dhammi la dagaalamayaan, taasna aanay awood u helin la dagaalankooda. iyada oo taariikhdii hore ee muslimiintu ay guulo ka gaadheen kuwan oo kale iyo labanlaabkood, laakiin muslimiinta ayaa taariikhdoodii ilaaway kuna baraarugay cadowgooda iyo isxulufaysigooda. 5. mar kale waxyaabaha Tataarku warbaahinta u adeegsadeen si ay u niyadjabiyaan muslimiinta waxaa ka mid ahaa in ay xiriir la sameeyeen madaxda muslimiinta. sidaan ku soo sheegnay halka hore, shaki kuma jiro in shacabka muslimiinta ah haddii uu majaraha u qabto hogaamiye naftiisa ka horumarinaya ta shacabkiisa, Tataarkana u diyaarinaya hadiyadaha kuwa ugu qaalisan si uu u raaligeliyo in ay shacabka ka baxayso difaacii, xamaasaddii iyo waddaniyadii ay ku difaaci lahaayeen waddankooda, maadaama aanay haysan madax u horkacda dagaal iyo difaac, laakiin ay hor joogaan rag soo shaqo tegey
una degdegaya hadba meesha ay danahooda ka dhex arkaan. Muddooyinkaas aan soo sheegnay waxa ay awoodeen oo ku guulaysteen Tataarku inay baqdin iyo holac ku abuuraan qulubta muslimiinta. Sidaa darteed waxaa hadhaysay muslimiintii Ciraaq cimilo baqdin iyo argagax leh, dhanka kalena Tataarka u sahlaysa inay gudaha u galaan Ciraaq. Waxaa intaas dheer oo uu Holaag sameeyey arrin aad u yaab badan, waa wiiqidii iyo yarayntii ciidamada Cabbaasiyiinta. Holaag waxa uu la soo xidhiidhay wasiirkii faasidka ah ee Mu'ayyidiin inuu ku qanciyo madaxweynaha Muctasim Billaah inuu dhimo miisaaniyadda ciidamada iyo inuu yareeyo tiradooda, iyo in aan dhaqaalaha dowladda lagu khasaarin hub iibsasho, iyo in aan dagaal khasaare mooye faa'iido aan u lahayn dalka la geliyo ee dhaqaalaha waxyaabo kale oo faa'iido leh lagu qabto. waxaa markiiba soo cararay wasiirkii khaayinka ahaa oo iska dhigay nin nabadeed oo samitaliska jecel, wuxuuna khaliifkii ku akhriyey wixii uu Holaag soo faray, isagoo iska dhigaya nin indheer garad ah oo meel fog wax uga muuqdaan.